السلام عليكم saaxiibayaal dabcan shirkadii markaa soo bandhigay sidee markaa lacagta ka shaqaysato uga saaranaysaa okay haddaba muuqaalkan ayaad ku baranaysaa iyadoo faahfaahsan qaabka aad lacagta aad ka shaqaysato shirkadaas uga saaranaysid sidoo kale saaxiibayaal soo gal telegramkeena waxyaabo aanan halkan aan soo dhigin ayaa kusoo bandhigaan dabcan si arkaysa telegramkeena waa kana yani dabcan si daily ayaa markaa active u ahay haddaba saaxiibayaal muuqaalkan hadda daawanayso descriptionkiisa kliksi halkaas ka soo gal sidoo kale muuqaalkan like-tiisa la gaarsiiyey saaxiibayaal 500 oo like ugu yaraan 500 oo like asxaabta haddaba ila daawo sidoo kale saaxiibayaal koorsku waa uu dhammaystiran yahay bilow ilaa dhammaad xirfadda yacni qaabkan lacagta ku shaqeeyey stepskii aan maray wixii oo dhan fadlan muuqaalkan daawo muuqaalkan sidiisaba wuxuu soconayaa 44 daqiiqo okay haddaba saaxiibayaal $1712 aan ka shaqaystay ayaa waxaa doonayaa inaan ka saarto muuqaalkan oo faahfaahsan ku baro sida markaa lacagta shirkadda uga saaranaysid okay saaxiibayaal waatan lacagtii oo markaa ii timid si arkaysid yani dabcan si arkaysid lacagtii ii timid waa kan sidoo kale accounti number yani accountigii aan kula baxayna lacagta waa ka 5024 si arkaysid waa kan markaa yani account-kii waa kan yani 5024 hoos haddaa u baxno waxaa arkaysaa lacagtii oo markaa aan 1712.80 account-ku aan kula baxay waatan iyadoo markii oo aan la baxay haddaba muuqaalkan oo faahfaahsan qaabka withdraw loo sameeyo qaabka waxaasoo dhan ayaad ku baranaysaa iyadoo markaa Payoneer timidna waa iyadoo markaa accountigayga Payoneer timidna waa tan dabcan 22 Febraayo ay timid si arkaysid intan ayaa ii soo dhacday balse sababta intaa u soo dhacday ma garanaysaan waxa weeyaan yani Payoneer waxay goosataa wax loo yaqaano 1% ay goosataa oo 1712 ay waxay ka goosatay 1% intan ayaa noqotay sidoo kale $29 waxa ay goostay yani Payoneer ayaa wax loo yaqaanaa maintenance fee ayaa loo yaqaanaa ayaa iga goosteen ugu dambeyn balansigaya waa ka isla maalinka ayaa goostay dabcan si arkaysid halkan waxaa laga rabay inay noqoto $1600 marka laga jaro 1% Payoneer markii lacag aad kusoo dirsatay ay kaa goosanayso halkan ayaa laga rabay laakiin 29ka waa ka haddaba saaxiibayaal muuqaalkan oo faahfaahsan yani qaabka buyout-ka loo sameeyo ila daawo soo kale fadlan saaxiibayaal ha ilaawin inaad markaas soo gashid telegramkeena muhiim ayuu ku yahay soo gal telegramkeena waxyaabo waxaad ka faa'iidi doontaa aad iyo aad u cajiib ah oo marka aanan halkan soo bandhigin inta badan ma soo dhigo hadda dabcan lacagtan waxaa la ii soo diray 6 days ago 6 beri koraya ilaa hadda ma soo dhig balse telegramka yani waa soo geliyaa maasha Allah maanta waa kaas haddaba saaxiibayaal telegramkeenana markaa soo gal waxaad ka soo galaysaa halkan ay ka soo galaysaa haddaba ila daawo sida buyout-ka aan u sameynayo lacagtan aan u sameynayo haddii aad kooraska dhammaystiranna muuqaalkan daawo muuqaalkanna waxaan kusoo dhigayaa description-ka hadda muuqaalka aad daawanaysid waxaan kugu qorayaa kooraska oo yani dhammaystiran sameynayna hadda markaa ratid saarkiisa accountigayga Payoneer ayaa igu xiran Payoneer si loo samaysto aad u fududahay muhiimna maaha inaad marka hore aad ka walwashid يعني سي بنجي لو سميستو مهمة مرة هدا العكس ميسيد مركو ورا العقد سميه كدب مركا يعني بنجي موايسيد اكل بحد اوكي انت كدب waxaa leedahay saaxiibayaal withdraw funds ayaa kliksina okay dabcan saaxiibayaal saarkiisid lacagtii sidaas ay markaa inoogu baxday inkastoo aanan duubin markii aan buyout ku sameynayay 1700 lacagtaas balse waxaan ku tusin doonaa muuqaal kale anigoo markaa yani ama lacag kale anigoo markaa buyout ku sameynaya si aad adna ila barato sida markaa withdraw ama bangi loogu xirto ama PayPal haddaba ila daawo muuqaalka okay saaxiibayaal saarkiisid home aad tagaya dabcan saarkiisid kunti waa kana commission aad tagaya saarkiisid waa isla aragnay qaabka marka accountiga lagu xirto accountiga aad u fudud yahay waxa leedahay tusaale kale aad bay method ayaa leedahay kadibna direct kadibna marka bangiga ku xiranaysaa halkan waxaad gelinaysaa account holder name-ka magaca yani ay gelinaysaa account number-ka iyo routine okay saaxiibayaal option-kaas direct deposit waa markii aad kula baxayso Payoneer ama bangi marka kula baxayso weeyaan soo kale waxaad kula bixi kartaa option-ka loo yaqaano option 2 oo ah PayPal yani PayPal inaad kula baxid soo kale option-ka saddexaad oo ah option-ka loo yaqaano Stripe inaad Stripe kula baxid balse adiga waxa ku fudud inaad samaysatid bangi Payoneer oo kale ama inaad PayPal oo kale aad kula baxid waliba ka sii fudud oo marka aad kula sii baxayso marka optionadaas ayaa loola baxaa saddex marka lacag la bixisto waqtigiisa commission marka koowaad waxa ku xiranaysaa يعني بنجي كحرنيسا كدينا مركز تكسيقات في الجرانيسا كدينا مركز حلاده هالكن يقرنته withdraw كدينا مركز حلاده هاي هالكن يقرنته هاي هالكن يكسي قرنته هاي conveying withdraw أي سيلة طبعا
marka waxaan ku yiri halkan ayaa la taabanaysaa withdraw lacagtan xawilnakum kadibna waxa leedahay confirm withdraw wow hambali lacagtii way baxday saarkaysa saaxiibkaal hadaba xirfadan aad iyo aad u fududahay inaad ka shaqeystid oo lacag samaysid mar walba waa chance yaa lagaaga hormarin insha Allah muuqaalkan oo dhameystiran $626 mumlanaysa badeeco alaab lama iibin yani mumlanaysa dukaan lama furan kaliya oo online ka laga sameeyay ma aha yani dad wax iibsadeen waa registration iyo commission registration yani ma in dadku inay wax iibsadeen waa registration oo kaliya ala cajiib u tahay